qur'aankii rabbigeenne qur'aanka aan jelayne. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أنيقو صلاة عبد الله حاجي ومولها قيبت قرآنك مؤسسة أم القرى الداخلية. قيبت قرآنك waxay ka kooban tahay dhowr iyo 10 xalqadood. waxaa ka mid ah xalqooyin loogu talagalay barbarka iyo xalqooyin loogu talagalay taxfiidka quraanka. waxaan sameynaa imtixaamaad shahri ah iyo nisfi iyo nihaayi anagoo ulajeedkeena uu yahay tayada ardayda in la hubiyo. run ahaantii waxyaabaha aan bixinno waxaa ka mid ah tarbiyada islaamiga iyo tajwiidka tasxiixa ardayda in laga saxo dhawaqa. run ahaantii wax la beerto oo la tacbado waxaa ugu wanaagsan bini aadamkana wax lagu tacbado waxaa ugu wanaagsan uguna khayr badan barashada diinta islaamka. sida ajligeeda mu'asasadu waxay cinaayo gaar ah siisay barashada qur'aanka kariimka. annagoo middaa ka doonayno waxaan dhammaan waalidiinta ubadkooda halkan ay dhigtaan u sheegaynaa waxaan diyaar u nahnay waqti waliba oo aad u baahataan xogta ubadkiina. waxaan ka dhabayn doonaa tarbiyada ubadka iyo adkeenta tarbiyadooda. waxaan halkan mahadnaq iyo hambalyeen ugu dirayaa dhammaan macallimiintii nala shaqaysay sanadkii hore ee tegey. waxaa leeyahay abaalkiina allah subxaanahu wa tacaala hadii kugu bedelo khayr iyo barako insha allahu tacaala. intaas ayaan kusoo koobayaa. wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.